wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha iyo agaasimaha guud ee wasaaraddaasi ayaa maanta soo gaadhay magaalada Gabiley ee xarunta gobolka Gabiley waxaanu wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha maamulka gobolka iyo ka degmada Gabiley ay kormeer ku soo mareen garoomada kubadda cagta iyo kolayga ee magaalada Gabiley iyo sidoo kale goobaha dalxiiska ee magaaladaasi wasiirka oo la hadlay warbaahinta intii kormeerka lagu guda jiray ayaa waxa uu yiri Gabileyna maanta aad baan inagu mahadnaqayaa si aad noo soo dhaweyseen iyo si aad noo maaragtay milgaha maaragtay soo dhaweyntiina leedahay aad u sareeyo aad baan inagu mahadnaqayaa iminkana waxaan dhex joognaa waa garoonkii aad u talagteen stadiumka aad buu noo cajabiyay wax badanna waan ka dhex arkaynaa inuu insha Allah ilaahay noo fududeeyo ka wasiir ahaan waan inii mahadnaqayaa waan inii maxaan ku idhaahayay abaal baan inii haynaa dowgiinnimaad garateen waanad ku mahadsantihiin sidoo kale barasaabka gobolka Gabiley Xamse Maxamed Cabdi iyo maayirka magaalada Gabiley oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxa hadaladoodii kamid ahaa aan ugu talagalay inuu yeesho gobolka Gabiley garoonkan aad aragtaan dhismihiisa wuu socdaa mudane wasiir waxaan jecelahay garoonkani inuu noo dhamaado insha Allah biidnillaahi albaari inta aanay soo galin waqtigii loogu talagalay in la qabto ciyaaraha gobolada sababta aan sawlay waxay tahay waxaanu diyaar u nahay haddaanu nahay gobolka Gabiley inaanu marti gelino tartanka ciyaaraha gobolada saacadu wasiir adiga iyo waftiga hogaaminayso waxaan leenahay soo dhawaada ku soo dhawaada caasimadda gobolka waxaanu joognaa hadda garoonkii Mo Farax Stadium oo dhismihiisu socdo waxaan hore u soo marnay garoonkii kubadda kolayga iyo sidoo kale halkii dhagax maroodiga aha goobaha dalxiiska ku yaala magaalada Gabiley saacadu wasiir waan ku faraxsanahay kormeerka noogu timaado marka kulli waxa naga go'an inaanu horumarinta dhalinyarta xil weyn iska saarno wasaaradahan iyo dawladaha hoose wax naga dhaxeeya cooperation weyn haddaanay dawladda hoose nala shaqeyno gabagabadii wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha iyo agaasimaha guud ee wasaaraddaasi waxa ay kulan la qaateen maamulka gobolka iyo ka degmada Gabiley iyo isku duwaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee gobolkani Gabiley iyadoo halkaasina ay maamulka ku wareejiyeen qalabyo sporti mari jiraan wasaaradda kale oo xafiisyada oo qaarkood ka wasaaradda ciyaaruhu ay ka balaaran tahay xafiisyada way jiraan anagoo aan idinku tumayno wax haysan oo takranaysaan hadana ilaahay idinku waxaan ku dadaali doonaa in wasaaradda isma gaar ah ay yeelato oo halka khayriyada ay wasaaraddu ka soo baxaan ay xafiiska helno deeta marka dambe meel u helnaa meelka qaar dad aragtay gurad deegaan oo garoomada in ku lahaydaan ama garoonkeeda ay nagu qabsadaan gurad deegaan Gabiley jooga waxay u doonaanba inay meel kale u raadiyaan oo si fiican saddex garoon ka jira وسكري نوح إبراهيم تلفزيون كمدح بناني ريا TV مقالة Gabiley